bisha May aynu ku guda jirno ayaa si toos loo fariisan doonaa imtixaanka shahaadiga ah oo ay qaadaysay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Ardayda Soomaaliyeed ee ka qaybgalaya imtixaanka ayaa diyaar garow weyn u muujinaya si ay u soo hantaan guusha safarkii dheer oo ay 12 sano ay ku jireen. burburkii Soomaaliya kadib dawladdii hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib u bilowday in dawladdu ay qaado imtixaan shahaadi ah ee fasalka 12aad. markii aynu eegno 2 sano ay ugu dambeysay imtixaankii ay qaadaysay dawladda, ardaydu waxa ay kala kulmeen caqabado xooggan oo kaga imaanaya dhanka dawladda. sanad dugsiyeedkii 2018-2019 imtixaankii ay qaaday dawladda Soomaaliya ayay caqabado xoog leh kala kulmeen ardayda Soomaaliyeed, waxaana dhacday in xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada ay iibsadeen imtixaanka ay ardaydu galayeen, sidaasina uu ku furmay suuqa madow ee imtixaanka lagu kala iibsado. waxaana xilligaasi wasiirka waxbarashada ahaa Cabdullaahi Goodax Barre 3 maalin oo xiriir ah markii ay imtixaanku galeen ardayda ayuu hal mar dhawaaqay. Cabdullaahi Goodax Barre waxa uuna baabi'iyay 3 maalmood oo ay soo galeen imtixaanka ardayda, isaga oo xilligaasi caro xooggan kala dul dhacay waalidiinta iyo ardaydaba, taasi oo keentay in ardaydu ay caroodaan isla markaana ay dhigaan banaanbax ay ku diidan yihiin in imtixaanka la joojiyo. joojinta 3 maalin kadib imtixaankii la galay ayay bahda waxbarashadu waxa ay ku sifeeyeen mashruuc ay wasaaraddu lacag ku raadinaysay, waxa ayna bahda waxbarashadu ay sheegeen in ay ahayd wax loogu talagalay in 3 maalin kadib imtixaanka la kansalo si mashruuca lacag raadinta ee 3 maalin uu hirgalo. waxaana 3 maalin ee imtixaanku socday dalka isaga maqnaa wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya, taasi oo abuurtay tuhun xoog leh oo keentay in ardayda iyo waalidiintuba ay dhahaan wasiirku ayaa wax ka ogaa, hadduusan wax ka ogeenna dalka muxuu uga baxay. dawladdu oo kala hore sheegtay in ay baaritaan ku sameynayso ayaa waxa ay soo bandhigtay sawirka shakhsi ay ku eedeysay inuu ka dambeeyay iibinta imtixaanku, waxayna sheegeen in maxkamadda lala tiigsan doono, balse maalmo uun kadib shakhsigii ayaa la waayay meel uu ku dambeeyay, meel lagu maxkamadeeyay iyo sheekadiisa wax wadaba. xilligaasi dawladdu waxaa ka aamin baxay dalladihii waxbarashada, mu'asasooyinkii iyo iskuuladii, taasna waxay keentay in calaamatu su'aal la saaro wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. sanad dugsiyeedkii fashilka dhacay kii ka dambeeyay ee 2019-2020 ayay mar kale wasaaraddu qaaday imtixaan ay ardaydu iyo waalidiintooduba ay shaki weyn ka qabaan, iyaga oo ka baqdin qaba in ay dhacdo tii sanadkii hore oo kale. wasaaradduna waxa ay galaangal xoog leh ugu jirtay in ay iska difaacdo in mar kale aysan ciiboobin, sidaasi ay ku qaaday imtixaankii, waxaana ardaydii ugu badneed ee imtixaankaasi ka dhacday ahaayeen ardayda gobolka Banaadir. waxaa dadka falanqeeya arrimaha waxbarashadu ay arrintaasi ku sifeeyeen in weli ay jirto habacsanaan dhanka wasaaradda ah, oo waxaa la leeyahay si siman oo cadaaladi ku jirto imtixaankii looma sixin, waxaana halkaasi ku niyad jabay arday badan oo safar dheer ugu jiray muddada 12 sano ah. dhacdooyinkii aynu soo sheegnay waxay dhaceen xilligii uu wasiirka ahaa Cabdullaahi Goodax Barre. falanqeeyaasha waxbarashada ayaa sheegay in Goodax Barre lagu qalday xilkaasi uusan u qalmin in loo dhiibo mas'uuliyadda wasaaradda waxbarasho. hadda ayaa loo balansan yahay in imtixaanka la galo xilli mandatekii dawladdu u dhacay ayna jiraan xasarado siyaasadeed oo keeni karta in mar kale imtixaanka la siyaasadeeyo, balse lama oga waxa uu la soo shartagi doono wasiirka cusub ee waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Carab. wasaaradda ayaa durbaba bilowday tababaro ay siinayso shaqaalaha wasaaradda si ay uga feejignaadaan in qalalaase uu ku yimaado imtixaanka. waxaa xusid mudan in xilligani bangiga dhexe ee dawladda uu sagxadda garaacayo, waxaana falanqeeyaasha waxbarashadu ay sheegayaan in mar kale imtixaanka lacag laga samayn karo, maadaama dadkii lacagta horay uga sameeyey aanan cadaaladda la soo marsiinin. ardayda Soomaaliyeed waxaanu idin leenahay Allah idinku guuleeyo
halganka dheer ee aad soo wadeen 12 sano. cadaalad, sinaan iyo hufnaanna ayaanu idinkaga rajaynaynaa wasaaradda waxbarashada, adinkuna dadaal badan sameeya.